luul cadaaladdeeda sidaan laguma qarin karo kumana qarsoomayso laamaha amniga booliiska Soomaaliya kan gobolka Banaadir ciidamada nabad sugidda iyo cid kasta oo kale oo mas'uuliyadda amniga dadka Soomaaliya uu saaran yahay waxaan u sheegnaa kaarintiinii waa gabteen yaan dhibaato kale to umada loo horseedin yaan xilligan dib loogu laaban foodo iyo arrimo khalad ah ninkaasi gabadha gubay hal soo qabto cadaaladda hal hor keeno halkan waxaan isugu nimid inaan ka hadalno dhacdadii musiibada ahayd argagaxa ahayd xanuunka badneed ee qalbiga qof kasta oo Soomaali ah wada taabatay dhacdadii gabar Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed marwe Soomaaliyeed luul Cabdicasiis Maxamed ayada oo nool dab lagu qabtay oo korkeedu dhan la gubay waliba ay gamaartay bislaatay hilibkeedu oo bislaad cidda dhibka u geystayna ay tahay qofkii ay nolosheeda iyo nafteeda ku aamintay qofkii ay ubadkeedii iyo ilmaheedii ay caloosheeda ugu siday ee ay uurka u lahayd 6 bilood ah ninkii qabay ee sida sharafta iyo dadnimada leh ay nooga soo doonteen asagii ehelkiisa ee aan siinay ee aan kula xididnay uu gubay dabka ku qabtay ninkaas magaciisa la yiraahdo Sayid Ali Macalin Daawud dhibaatada luul loo geystay waa dhibaato loo geystay qof kasta oo muslim ah waa dhibaato loo geystay qof kasta oo Soomaali ah waa dhibaato loo geystay qof kasta oo damiir iyo dadnimo leh meel kasta adduunka uga joogo waan ka tacsiyeenaynaa waa ka tiiraanyoonayna waana ka xanuunsanaynaa fariintan ama kulankan maanta waxaan isugu nimid ama aan saxaafada u hor nimid inaan ka hadalno musiibada dhibaatada gabadha loo geystay dhib kale oo ka fool xun kana xanuun badan in wali dadkeedii iyo meydkeedii oo yaala lagu dulwado dhibkaas oo ah in laamihii amniga dawladda iyo dadkii mas'uulka ka ahaa inay dambiilaha gacanta ku soo dhigaan in ay ka aamuseen inkireen qariyeen kuna talagaleen in xaqeeda la duugo arrintaasna ma ahan arrin damiirka iyo dadnimada insaaniga ah bashariyadda iyo islaamnimada midna ku saxsan luul xaqeedu ma aha mid qarsoomi kara waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo adduunyada ka joogan meydkii la gubay ee hilibkeedu uu bislaaday ee luul banaanku yaala lama aasayo lamana aasi doono ilaa gacan ku dhiiglahaas axmaqa ah gacanta lagu soo dhigo cadaaladana la hor keeno laamaha amniga dawladda waxaan ku cambaaraynaynaa inay gabeen kaalintii iyo mas'uuliyaddii ka saarnayd cadaalad u helidda gabadhaas dhibanaha ah marxuumkaas maantay dhimatay ee aakhira aaday ee sababsatay dabkii uu ku qabtay ninkii aan anagu ku aaminay ee aan maxaa la yiraahdaa u guurinay laamaha amniga booliiska Soomaaliya kan gobolka Banaadir ciidamada nabad sugidda iyo cid kasta oo kale oo mas'uuliyadda amniga dadka Soomaaliya uu saaran yahay waxaan u sheegnaa kaarintiinii waa gabteen sabab kasta oo aad doontaan ku gaba ma doonayna inaan hoos wax u sii faahfaahino laakiin xanka iyo eedda jirta waan ognahay haddii laamaha amnigu ay kaalintoodii sidaan u baneeyeen waxa kaalintaas in laamaha amnigu baneeyeen buuxin doona waa la wada garanayaa waa isku dhac bulsho iyo dhibaato in la abuuro arrintaasna arrin ku saxsan maanta Soomaaliya oo colaado iyo dagaal ka soo kabsanaysa ma ahan waxaan doonayaa inaan fariin u dirno annagoo wada jirna oo ah dadkii la dhashay ehelkii iyo qaraabadii iyo dadka ay ka dhimatay luul madaxda wadanka ugu sareysa ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku xigay ra'iisul wasaaraha wadanka uu ku xigo wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga garsoorka cadaaladda baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhamaantood waxaan u sheegaynaa shaqadii ay Soomaaliya idin igmatay baa maanta la taagan yahay gabadhaas muwaadinada ah xuquuqdeeda mudane madaxweyne mudane ra'iisul wasaare mudane yaal wasiirayaal waa waajibkii la idin igmaday ka hadla soo baxa u dagaalama ka shaqeeya inay cadaalad hesho marxuumad luul Cabdicasiis Maxamed haddii aamusnaanta hadda la aamusan yahay ay ku sii socoto waxay noqonaysaa macnaheedu in madaxdii wadanka ugu sareysay dhibanahaas dhibka loo geystay ay si un ma aragtay ama inkireen ama ay ma aragtay ka gaabiyeen
ugu dambayn waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto luul cadaaladdeeda sidaan laguma qarin karo kumana qarsoomayso haddii aan maantay la soo qaban ninka dambiilaha ah waxa dhici karta in dhibaatooyin kale oo bulsho oo aan intaan ku ekaan doonin daba dheeraadan inay ka dhashaan waxaan ka digaynaa yaan la abuurin qas bulsho yaan dhibaato kale to ummadda loo horseedin yaan xilligan dib loogu laabanin foodo iyo arrimo khalad ah ninkaasi gabadha gubay ha la soo qabto cadaaladda ha la hor keeno cid kasta oo qayb ka ah in ninkaas cadaaladda laga qariyo waxay la wadaagtaa dambiga uu ka galay ummadda Soomaaliyeed dambiga uu ka galay waxay ahayd gabar aqoon-yahanada oo master degree ah oo hekelka dawladda shaqaalaha iyo airport-kaba qayb ka ahayd marka hore waxaan leenahay Allah u naxariisto walaasheen qabriga Allah u waasixiyo xaqiiqdii luul waxay ahayd qof qaali ah waxay ka tagtay ehelkii caruurtii guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed waxay ahayd gabar aqoon-yahanada oo master degree ah oo hekelka dawladda shaqaalaha iyo airport-kaba qayb ka ahayd xanuunka ay nagu hayso geerideeda iyo mashaakilka iyo dhibka maaragtay soo gaaray ma ahan mid maantay halkan aan ku soo koobi karno waxaan isugu imaanay inaan ka hadalno hore uga hadalnay inaan dawladdii baaq u dirno annagoo dalbanayna in walaasheen ay cadaalad hesho waxaan rabnaa inaan caddeeno mowqifkeena horena u caddeynay ciddii shaki ay kaga jirtayna hadda ay ogaato in luul aan la aasi doonin ilaa la helo dambiilihii gacanta lagu soo dhigo uu sharcigana maro waxaa laga yaabaa dad badan inay xoogaa tuhun iyo shaki ay ka yara qabeen laakiin waxaan halkan isugu imaanay waxaan cadaalad doonaynaa walaasheen inay cadaalad hesho waxaan caddeynaynaa mowqifkeena inuu yahay haddii aan nahay ehelkii luul in luul aan la aasi doonin ilaa ay cadaalad hesho eedeysanahana la soo qabto la keeno cadaaladda ugu dambeyn hore ayaan laamaha amniga uga codsanay iyadoo laamaha amniga muddo 7 intii walaasheen ay dhacdada ku jirtay dhaawaca ee isbitaalkana ku jirtay intaas aan filanaynay maalin ama 2 maalin in dambiilaha lagu soo qaban karo dabcan cirbad ceel ku dhacdayba way soo heli karaan dadaalada laamaha amniga markii la fiiriyo haday yihiin booliis iyo nabad sugid marka wali waa la qilanahay in luul oo geeriyootay maalintii labaad ee furteej ku jirta in wali baaqi ehelada aan laga soo jawaabin waxa ku hadlayno waa Soomaali hadii dawladda hadii luqado kale oo afqalaada aan kula hadlayno waa gaar waay muhiimadda halkaan isugu imaanay waa walaasheen inay cadaalad hesho waana ka shaqeynaynaa bahda saxaafadan waxaan kaga mahadcelinaynaa sida wacanay noola shaqeynayaan waxaan rajeynaynaa in maalin aan sidaan oo kale u soo wada istaagi doono walaasheen cadaalad hesho insha Allah walba sidoo uu falay ayaan ku xukumi lahaa kii gabadha gooy waxaan la hal gudo kii gabadha bireeyana hala bireeyaan lahaa qofkii qof dila in loo dilo أنا وحول الله خلوق أساس. وفلحن وفل أرجح له وفل أمد الصوماليات عن فيلين الحل كان للجوجو. رجس عدالة ده وين محيا هذا عدالة الهر كانها أو وحي سميان الوق هذا وحي سميان. نتاعو لحد بلود أورك علوش قودي الماء أجون هذا هي ستي وأديجي سي والله طبعا نصدر أفيه وحرجين لها إن سدوا نقصيها بدل ما أمني رارك كبده. inay kala shaqeeyaan si ay ugu soo qabtaan ninkaasi saacadihii la soo dhaafay waxa si weyn baraha bulshada u qabsaday nin xaaskiisa ku gowracay qoryooleykaasi oo dilkeeda u adeegsaday toorey dhinaca kale shalay ayaa waxa magaalada Muqdisho ku geeriyootay Luul Cabdicasiis oo ahayd hooyo korinaysa 6 caruur oo agoon ah taasi oo maalmo ka hor isbitaal la dhigay kadib markii ninkii qabay iyadoo uu ku gubay gurigii ay deganeeda kiisaskan isku eg isla markaana rag ay ku dileen xaasaskooda ayaa waxa si weyn kaga dhiibiyay oo kaga carooday dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho kuwaasi oo sheegay in arintani ay tahay mashruuc lagu banaysan iyo dhiigga gabdhaha Soomaaliyeed isla markaana dawladda Soomaaliya waxa ay ugu baaqeen in talaabo sharci ah laga qaado ragga iyagu dilay xaasaskii u dhaxayay wallahi horta aad ugu xumahay maadaama ay maamulin Soomaaliyeed waliba aniga waxa aad ii taabatay maamulul
oo barnaamijkeeda jimcada horena ahay gubitaankeeda jimcadaana aan maqalnay geerideeda horta ilaahay u naxariistaa leenahay marka hore marka labaadna dadkay ka dhimatay samri ima Allah ka siiyo waxaan rajaynayaa malaamaha amniga inay si dhaqsiya cadaalad u korkeeni doonaan golay waxaan maqlay inuu baxsad yahay xamarna golay lagu baxsan karo dad dibadda ka imaada lagu qabanayay oo soo dhuntay qof xamar dhex jooga oo familkiisa ehelkiisa la yaqaano oo maleemaha inuu baxsan doono waxaan ka rajaynayaa macallimiinta iyo tiimkiisa inay golay aadan usud inay soo qaban doonaan insha Allah maamada kale oo ayadana xal lagu gowracay qoryooley wallahi ayadana wuxuu ma sidoo kale sababta waxa keenayso ma sheegi karo wax keenay in oo qof dumar oo ilmo haysto oo hooyo la gowraco arrinta waan cambaareeraya waxa weeye waa fool xun diiniyan wax diiniyana maaha wax dhaqan Soomaaliyeed maaha wax xataa bini'aadanimada ku jirta xataa maaha marka arrintaas waa arrin fool xun waa arrin uguba arrintaana waxaan anigu aaminsanahay in dawladda Soomaaliya inay wax ka qabato iyo maamulada iyo shacabka Soomaaliyeed in muxuu ahaa meel looga wada istaago la soo qabto waxa ay mudan yihiin laga mariyo oo ka muxuu ahaa qoryoolay gabadha ku bireeyay kan kale gabadha gubay intuba waa arrin fool xun mana mudna gabdhaha Soomaaliyeed ee marwooyinka insaan loo galo marka arrintan waxaan leeyahay meel ha looga war istaago shacab ahaan dawlad ahaan maamul ahaan intaba anigu xukunkooda waxaan ka dhigi lahaa nin walba sidii uu falay ayaan ku xukumi lahaa kii gabadha gooy waxaan u lahaa hala gubo kii gabadha bireeyena hala bireeyaan u lahaa hase yeeshee inkastoo dastuurku baddeedhiga ama diiniyan bay tahay qofkii qof dila in loo dilo anigu waxaan u lahaa ha loo qasaaso labadaba ha la soo qabto ha la qasaaso waayo waxaa ku qudro qaadanaya dadka dambe laakiin iminka haddii saa lagu sii daayo waddo furanta bay noqonayaan waxaa dhici doonaa inayba noqoto wax la fududaysto oo sidaa dadku ay yeelaanba wallaahi dhibaatadaas aad baa uga xunnahay waxaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dadweynaha dhan ka codsanayna dhibaatadaas inay ka xumaadaan cadaalad ay siiyaan gabdhaha Soomaaliyeed oo degdegna cadaalad loo horkeeno dhibaatadaas dadkii sameeyay gabdhahana waa gabdhaha hooyooyin weeye walaalo weeyaan oo inay dhibaatadaas ka deeyaan oo gabdhaha si fiican ula dhaqmaan raggaas cadaaladda waa inay maxay ahaday oo cadaalad la horkeeno oo waxay sameeyeen lagu qaadaa waxay sameeyeen walwal bay ku abuurtay maadaama gabdhaha Soomaaliyeed gowracay aad iyo aad baa uga walwalay uga xanuunsaday aad iyo aad bay walwal arintaas igu saameysay yow horta arrin aad looga xumaado waaye gabdhihii Soomaaliyeed in mar walba raggii ay ka tirsadaan aad ay horta u xun tahay soo dumarkana waxaa waaye horta marna hooyadeena waaye marna way noo dhaxdaa marna ilmaheena ay waalid u tahay horta waxaa waaye qalad aad u weyn waaye qof dumar ah in la dilo taariikhdan hadda dhacday ay sheegayso horta xaafadeena ka dhacday oo Madiinaan deganahay gabadha meesha lagu gubay la sheegayo dabcan wallahi arrin aad u waaye kulliye hadii gabadha maanta ay xaamil ay si ahayd hadana lagu gubay gurigii nolosha tan ugu xumeed waaye waxa waaye waxaan dhihi lahaa aniga dadka dhibaatadaas geysanaya horta hal qof oo anaga naga soo dhaxbaxay wuxuu waaye all waxa waa ragga ma wada xuma laakiin kuwa waxaa jira oo maangaabyo ah oo dabcan dumarkii aad u dhibaateenayo marka wallahi waxaan dhihi lahaa dumarka simbri ha ka fiirsadaan qofka bini'aadanka isla justigaas ee ogaan karaanba dabcan intay dhagartiisa ay gaarsiisan tahay inay ka fiirsadaan aadan u rajeynayaa dabcan waxa wax laga falceliyay way tahay ragga waxay ku dhaqmayaan marka waxaan u arkayaa haddaan soo koobo waa fal xun waa fal argagax leh waa fal ummadda Soomaaliyeed aan filaynin xilligan la joogo oo dawladda Soomaaliya way soo kabanaysaa Soomaaliya way horumaraysaa marka waxyaalaha noocan hadda lama filaynin marka waxaan u arkayaa wax fool xun loona baahan yahay in laga hortaago